Salaam. Qofka maanta idinla hadlayo waa Saadiq Wadani iyo groupkiisa. Marka hore waxaan idin leenahay Ramadan Kareem. Waxaan tobanka casho ugu horeysay Ramadaanka aan ku jirnaa. Waxaan rabnaa maanta inaan dib uga hadalno cashiradii taxanaha ahaa aan jeclaysanay inaan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaagno. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno sida dropshippingkii cashirkeennii saddexaad sida lagu sameeyo uu qofka profit ku samayn karo asoo aan meel kala tegin. Waxaan rabnaa inaan ogaano dadka intooda badan North America jooga maalin walba way tegaan meesha loo yaqaano Walmart iyo dukaamada la xiriira. Bal waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano sida looga shaqaysto Walmart, yacni dropshippingka iyo kambaniyada ka wada shaqaystay iyo inaan gudaha u galno annagoo isticmaali doona softwareki aan hore idinku sheegay Seekanalistic aan cashiradii hore aan hoos usoo dhignay maantadana aan xagga hoose aan soo dhigi doono si aad idinkana uga faa'iidaysataan waa hagaagaan gudaha u galno insha allah. Marka hore waxaad tegaysaa walmart.com. haddii aad wadamada dibaddiisa degan tahayna iyadana waad registration waa ka samayn kartaa. koorsooyinkaas ayagana insha allah waxaan isku dayi doona inaan dib idingala wadaagno si aad ku ogaato waxyaabaha iibkaa saxdaha socda Walmart. waxaad inta badan tegi doontaa waxa loo yaqaana deals, waxa ay dealka hayaan Walmart. waxaan ku dhufanaynaa deals hagaag deals nagu dhacay. waxaan eegaynaa priceka ugu macquulsan ee dropshippingka laga samayn karo. waxaan kaloo aan eegaynaa inta starska uu helay waxa loo yaqaano starska oo la iibsaday. that means dadka siday wax u iibsadaan kanoo kale baalkan Kingford originally wuxuu yahay some kind of food waxyaabaha lagu darsado waa 3,591. those people waxay ka iibsanayaan online. so waxaan fiirinaynaa starska as well saan u ogaano shayga dropshippingka ay dadka ku sameeyaan. waagaa kawasan u soconno aan eegno mid walba 76 to 68 338. okay, mid walba waxaan eegaynaa starskan xagga hoose ku qoran iyo pricekiisa iyo qof walba meeshuu kaga fiican yahay ayuu ka eegi doonaa insha allah. hoosan u soconno. okay, tirekan Goodyear 108 25 I think is a good way. inta qofooda iibsata eeg 15,595 qofood online ay ka iibsadeen. isnada inay storeka tageen kama aysan iibsan. okay, so kanoo kale waa fiirinaynaa. so waxaan samaynaynaa maadaama Goodyear uu company weyn yahay waxaan samaynaynaa copy garanaynaa right click copy soo qaadana waxaan tegaynaa meeshii loo yaqaana eBay. waxaan ku dhufan doonaa titleka xagga saarayna and then we go from here. gudahan u galaynaa. okay, so waxaan arkaynaa priceka meeshan uu ka ahaa 108. automatically waxaa noo soo baxaya inuu xaggan ka yahay 164. so 160 pre-owned. kan waa pre-owned kan naga dhaaf waa kan waa mid mustacmala waa ka tegaynaa. horaan u socono 5078 xaggana meequu ka ahaa use it way. okay, so 160 kanaan eegaynaa. ninkan 160ka wejigeena kusoo dhacay ima soo iibiyey waxa uu iibshay one sold. teeda kalena waxaad ka garan kartaa qofkan inta viewga uu haysto inuu dropshipping yahay. okay, qofkan waa qof hadda soo baxay iska yar marka ma sii daba kacayno. wuxuu yidhi 164 plus shipping 1099. eBay dadka waxay ku yaqaanaan oo yacni ku soo caanbaxday inay gawaarida iyo waxyaabahaas inay iibiso. so qof walba oo garaash leh wuxuu imaanaya eBay ma rabo inuu Goodyear tago uu yacni year waxyaabo fara badan uu yacni u socdo marka uu iska codsanaya qofka. so waa arkaynaa xaggan one buu iibiyey and I believe haddii aanan calculate garayn inaan heli doono inta uu iibkan ku dhuftay. so 164 xagganna waxaan ka arkaynaa 108. so let's go again. waan hii sheeg koraan sii socon doonaa. let's go back this one. so aan eegno waxyaabo kale oo ayagana faa'iido fiican oo ka faa'iido badan kaasaan sii eegno. okay, 500 394. okay, weli waxaan eegaynaa nambarada iyo sida wax u socdaan.
66. Okay, this is good way. Kanoo kale aniga amaan very much after waxyaabahan oo kale waa dabagalaa. Let's see. waxyaabaha dadka gaariga ku dhaqdaa ama summertime soo dhow xaggaan joogno. You know, chemical. Okay, will be. Goob garanaysaa. xaggana imaanaysaa. waa ku dhufanaynaa iyadana. search baan leenahay. Okay, waxaa noo soo baxay 48.99, 44, 40. xaggana waxaa ku qoran price-kaas la eegana $29. Okay, $29. هذا ماشي hadda ku jirnaa $29. Okay, 48 plus $12 oo shipment lagu sameynayo. laakiin qofkan wuu sponsoray. So sponsor dhan waa ka leexanayna. calaamada sponsorka aan UCC qofkan eBay uu lacag siinaya sida uu u yimaado number 1. annaga waxaan raadinaynaa qofka number 1 ka aan sponsor ka ahayn. Okay, dadka macaamiisha they don't know waxaan, laakiin annaga we know game kan. So sponsor qofka waa qofka inuu rabo inuu alaabtiisa kor u timaado sida uu alaab badan u iibiyo oo faa'iidadiisa ay u yaraato. So xagga 29 bay ahayd, xaggana ii sheeg kan wuxuu iibinayaa 41 plus wuxuu leeyahay $20 oo shipmentiga ah. waxaan raadinaynaa qof aan sponsor ahayn oo waxaan iibiya. kan waa sponsor muubane. This one is not a sponsor. $49.95 buu leeyahay, waxaana uu iibinayaa wuxuuna hayaa free shipping. So dadka aad ay u iibsanayaan. intaan oo dhan qofku ka soo cararay wuxuu arkayaa shipping lacag xaggan u imaan. That's why ninkan uu iibshay 10 xabo. Let's see this guy. ninkan 10 uu iibiyey. So once he sell at 10 and $49.99, 20 xagga waxaan ka arkaynaa $29. So automatically waxaa ku jirta meeshan $20 oo profit ah kan laga xidho. $20 profit ku jirta. $20 profitkaas waxaa laga jarayaa fee-ga eBay. waa isla marka price-ka waxaa lagu soo iibiyey $29. waxaa la iibin doonaa $49.95. soo ma ahayn? ninka wuxuu iibinaya $49.94. Okay, $49.94. ninkan profit xaggan wuxuu ka qaaday $14.20. Okay, so hore waxaa idinku sheegay alaabaada gacanta ku hayn oo aad qof kale ay gacanta ku hayso oo aad adiga aad iibinaysid. So you only xaggan aad ka soo qaadaysaa, xaggan aad gelinaysaa, and you make $14.20. So that shows you game-kan inuu game khatar. ninkan meequu sameeyey 140 iyo wax la jiro ayuu sameeyey maadaama uu 10 xabo iibiyey. 10 xabo waxaad ku dhufanaysaa $14. wuxuu ka sameeyey alaab asiga aan lahayn. laga yaabo day in laga iibsaday, laakiin si aan u ogaan nafsiisaba wuxuu yahay ninkan. drop shipping wuxuu u shaqeeyaa markaa aragto qof drop shipping oo yani alaabo badan iibiyey, adna waxaa samaynaysaa qofkaas aad ii sheeg aad follow ku samaynaysaa, aad daba soconaysaa si aad u ogaato waxyaabaha kale uu iibiyo. So ninkan waa ogaanay 10 xabo success uu iibiyey, xagguna ka soo qaaday $29 uu xaggan kaga soo qaaday. intuu wuxuu ku iibiyey eBay $49 inuu ka faa'iiday $14 waa ogsoonahay. So waxaan u baahanahay ninkan alaabaha kale uu iibiyo. saan u ogaano waxaan imaanaynaa software-kan idiin sheegayay. waxaan leenahay competitor search. qofkan wuxuu yahay aan weydiinaynaa meeshuu ka yimid, waxyaabaha kale uu iibiyo. saan u ogaano san annagan advantage ama aan uga faa'iidaysan insha Allah. Let's go. Okay, go to waiting list. maadaama I believe ninkan inuu cusub yahay, iska sugeena ilaa uu Zig Analytic ay soo cadayso wuxuu yahay. ninka loo yaqaanay Zig Analytic weli wuu raadinayaa. waagaag weli waxaan ku jirnaa bartii loo yaqaanay Walmart. waxaan raadinaynaa waxyaabo deal ah. markan waxyaabo fara badan aan aragnaa. kabahan dadka way jecel yihiin, caruurta $8,444. laakiin anaga dharka ma iibiyo, laakiin it's a good option waaye. and let's see another one. $32.99, $97 aa laga iibsaday, isna wax soconaya ma aha. $41,732 aa laga iibsaday. waa speaker. I believe this one is will work. So mar walba markaad timaado saanaad wax u raadinaysaa saad wax uga hesho, and then from there you can go. markaas kadib aad ii sheeg aad meelaha wax ka raadin doontaa iyadana. waagaag waxaan ku soo noqonnay
aan rabnaa inaan ogaano ninkii aan ku daba jirnay oo magaciisu ahaa Jinping Ging something inaan ogaano weli progress bay leedahay 30 minutes way ka badan tahay inta badan waxay yiraahdeen waxay qaadanaysaa alaabtan in lagu cadeeyo qofkan 4 saac sida xaggan idinkaga muuqata sugitaanku wuxuu qaadanayaa ilaa 4 saac laakiin inta badan markuu sidaan yahay haddaa muddo sugtid 30 minutes wixii ka badan haddaa xagga ku dhufato Zeek Analytic way kuu soo saaraysaa qofkan waxa uu yahay. So as with the signal inshallah. Here we go. So this guy is wuxuu noqday nin Chinese China ka yimi. Okay. Ninkaan raadinaynay waxa uu noqdayba sidiisaba nin China ka yimi. Lacagta uu bishii sameeyay Zeek Analytic waxay noo sheegaysaa ninkan inuu sameeyay $5,880 inuu ninkan sameeyo wuxuuna ka yimi waddanka loo yaqaano China. alaabaha uu successful iibiyo waa 38 waxa meesha ugu jirto waa 283 totally bishan wuxuu iibiyey 38 laakiin alaabahan inta ku jirta marka loo eego percentage wuxuu iibiyey 107 shay ayuu iibiyey 107 shay ayuu ninkan uu iibshay average wuxuu alaabaha iibiyey waxa kamid ah 54 cashirada ayagana Zeek Analytic ku saabsan insha Allah waa soo bandhigi doonaa fadlan ha iloobin haddaad u baahato Zeek Analytic inaad sign garayso ama aad ka mid noqoto aad ku biirtid fadlan linkigan videoga xagga hoose ayuu kaga qoran yahay fadlan si annagana aan u noqon company weyn ay noo adeecaan dadkan companiyadan aan la tartamayno fadlan insha Allah taala linkigaas registration ka samee وهاجاك ما دام نمكن ونمكن دبس عني يبي علابتي هاي ماذا علابتي هاي 49.99 طبعا كحب كيب شيء وطبعا كحب كيب شيء وجيم بان 03 ها وحاجة إنه قاعد إنه هاي جيم بان 03 إنه نين Chinese هاي علامة داس مركا كواركتو Zeek Analytic ودروب شيبينج قف كان إنه هاي is clear so حاجة كسو قاضي ماشي وكسو قاضي Walmart deals okay وكسو قاضي Walmart حاجة وكسو قاضي $29 حاجة وحكو يبين $49 okay لما حبة كديا وهذا وحولي حاجة وحن دقنا هاي يعني إن game كان drop shipping sidoo uu shaqeynaa waxaan rabaa idin ka daba geeyo xaggan wuxuu leeyahay waxaan deganahay Monroe Township New Jersey ayaan deganahay United States of America like markaad aan gudaha u galnay waxaa noo cadaatay ninkan sidii ninkii hore aan soo gudbinay inuu yahay nin Chinese oo China degan laakiin inuu isticmaalayo drop shipping software-da loo yaqaano sida Zeek Analytic waxaan ogaanaynaa waxyaabaha kale uu hayo sida ay yihiin ninkan marka uu title-ka sameynayay waxa uu ku dadaalay inaan la dabagelin aan la ogaan title-kiisa sababtoo Zeek Analytic waxay ku leedahay ninkan ma naqaano siduu alaabahan ku keenay cashirkii hore waxaan kusoo qaadanay haddii ay tigtan ay saaran tahay calaamadan saxda hadday saaran tahay Zeek Analytic waxay ku leedahay ninkan waxaan ogsoonahay inuu Amazon ka soo iibiyo alaabtan uu xaggan ku iibinayo waa alaab $61 wuxuu iibshay laba xabo ayuu wuxuu iibiyey bishan March 3 2023 bal eeg hadayt waxaan lahayn qofku waxaan idin dhahay qofka drop shipping sameynaya markaad heshid nafsad ahaantiisa soo qaaday Zeek Analytic kan ku baar wuxuu yahay gudihiisa markaa u gaday alaabta uu iibinayo ayaad la eegaysaa alaabtaas haday profit iyo faa'iido fiican ay leedahay alaabta uu iibinayo ayaad la iibinaysaa maadaama asiga uu iibinayo 61.2 anaga waxaan leenahay 61.1 okay so can check that why no for this Zeek Analytic anagoo aan baarbaarin meelaha kale waa red iyo waxyaabo kale anagoo aan baarbaarin Zeek Analytic waxay noo fududeysay in alaabtan uu ninkan ka keenay meesha loo yaqaano Amazon maadaama ay click noo siisay waxaan ku dhufsanaynaa Amazon clicked meeshiina loo siiyey waatan alaabta iyadoo laba xaba waxayna leedahay ninkan wuxuu ka faa'iiday 2 pieces $7.99 okay
so comparationka ay inta badan Zig Analytic bixinayso iyo ninkan todo alaabta siduu u hayo totally sawirka ayaa uu bedelay ayuu ka shaqeeyay sawirada la bedelaa sidaan lagu soo daba kicin arkaysaa sawirada laakiin haddii aad gudaha usii gasho waa ogaanaysaa siday yihiin okay haddii aad gudaha usii gasho waa ogaanaysaa siday yihiin laakiin marka hore sawir aan sawir kale ka duwan oo aadan waxaa la yidhahdaa aadan tixraac ku samaynna meesha laguu soo gelinaya iyo titlekan ayaa lagu bedelaya hadhow sida aad tixraac aad ku soo samayn maadaama ninkan hadda naloo sheegay meesha uu ka keenay waxaan rabnaa inaan annagana ogaano si aan uga faa'idno wuxuu ku soo iibiyey 44.43 wuxuu iibinayaa 61.23 wuxuu faa'iidayaa $7.90 marka uu Amazon ka soo ship gareynayo waxa uu ka faa'iideysanayaa uu isticmaalayaa cashirkii hore waxaan ku soo qaadanay waxa loo yaqaano Prime shipping look here waa kana Prime shipping free delivery Wednesday April 5 ama faster hadda uga baahan tahay Sunday waxaa lagu keenayaa Sunday labadeeda maanta waa 30 laba casho gudahooda lagu keenayaa 44.33 waxaan rabaa inaan idin tusiyo sawirkan uu ninka noo soo saaray bartan inuu noogu soo saaray sawirka ugu horreeyay haddaa eegto sawirada kale uu Amazon ku jira waan ka dhex arki karnaa baleeg kan waa aragnay oo ninkan xagga naga tusiyey oo kala raadinaynaa kana slow baalka waa okay sawirkan si fiican u eg sawirkan okay iyo ninka sawiradiisa qaar ka mid ah isku eg isii sawirada marka waa isla same alaab xaggan uu ka soo iibiyey titladu soo qaaday titlku wax ka badbedelay floor step 2 pieces heavy duty waxbuu soo yiriiri ana isha xaggu soo geliyay and then that's how uu ninkan u shaqeysanayo waaga kaas waa garanay waana aragnay aan mid kale gudaha u sii galno okay waxaan aqoonin inta badan aniga caruurtu waa ka carara maadaama waddankan aan joogno very tough uu yahay so I will pass waxaana fiirinaysaa taariikhda uu waxay iibinaya taariikhda uu alaabaha iibinaya waa 2023 bisha labaad bisha saddexaad waxyaabaha uu bisha saddexaad iibiyaan xooga saaraynaa okay alaabihiisa dhan hal mar kor ka maraya saan uu ogaado sida uu okay bisha saddexaad toddobadeed baalkan hadda 54.99 baa ku qoran ma aqaan wuxuu yahay wuxuu u eg yahay shay gawaarida loogu talagalay West Mid Standard okay so sidan aad ku ogaanaysaa haddii aad waa ka hadli doonaa waxaan soo saari doonaa haddaad u aragtaan inaad u baahantihiin in Zig Analytics siduu u shaqeeyo wax u baaro uu ku ogaado haddii aad u baahantihiin inaad ogaataan fadlan fariin noo dhaaf si aan iisha gudaha u galno maalin dhan aan ka wada hadalno sida uu Zig Analytics u shaqeeyo iyo sida uu ii sheegaana wax looga ogaan karo alaabaha meesha ay ka yimaadaan iyo sida ay aad ku ogaanaysid alaabaha socday alaabaha kale waxaan waa garan lahaa waa battery I believe waxyaabaha batteriga iyo waxyaabaha kalena waa it's better inaad ka leexato ninkan maacuun xataa wuu iibinaya alaabaha so this guy is tough guy way you know for me aniga ninkan waa safe gareynaya waxaan ku darayaa waxaa leedahay hagan add to list wuxuu yahay sheeganaysaa waxaan leeyahay this guy Chinese dropshipper oo high value alaab lacag badan iibiya high value on a product waxaan leeyahay weli waxaan sii raacsanayaa success wuxuu ku guuleystay sorry spelling ama immigrant igra lahadiya wuxuu ku guuleystay ana ii sheeg more than 10 xabo inuu iibiyo 10 iyo wixii ka badan okay waxaan rate gareynayaa waa rate waxaan iska siinayaa ratekiisa 3 maadaama aan waxyaabaha uu iibiyo aan inta badan iibin laakiin waxaan rabaa cashiradan inaan dib uga soo qaadano insha Allah وهاجات وأنا وحسود إن عشر كنا ما أنتي تاسين إن أكون شوشينو إن شاء الله تعالى أنا حديد أصيب وضع إن فضل نو شيء حديد عرفتني أنا أصيب وضنو
waa Walmart kaliya maaha meelaha wax laga iibiyo, meelo fara badan aa jira oo iyagana wax lagu iibsho oo dropshipping laga sameeyo sida CJ dropshipping sida ii sheegaana. Waxaan rabaa inaan haddii aad xiisaynaysaan fadlan let us know, nala socodsiiya si aan video fara badan aan uga soo saarno. Haddii aad rabtaan aan idiin sheegno sida Zig Analytic uu shaqeeyo, iyadana hal maalin dhan hal video waxaan kasoo qaadi doonaa siduu u shaqeeyo Zig Analytic iyo sida looga faa'iido. Zig Analytic only ma aha kaliya waxyaabaha aad ka faa'iidaysid, waxyaabahan kaliya inaad qof aad ku raadiso kaliya ma waxaad samayn kartaa waxyaabo fara badan oo ku saabsan inaad ii sheeg alaab aad ku raadiso, sida inaad title soo qaadato, saan oo kale title aad u soo qaadato, aad ii sheeg aad ku baarto Zig Analytic. Okay, bes waxyaabo fara badan aa jira oo aad Zig Analytic aad ka heli karto. Waxaan isku dayaynaa automatically wuu noo soo saaray, wuxuu yidhi alaabta iyada hadda aan highlight garaynaya ninkan ayaa 100% iibiya, qof kale ayaa la iibiya. So exactly we know the game-ka. Haddii aad jeceshihiin video fara badan inaan kasoo duubno iyo arrimo ayaga badan waxyaabo ku saabsan dropshipping, fadlan noo sheega, nala soo xiriira Telegram-keena fariimo hoos noogu dhaafa. Haddii aad jeclaataan inaad Zig Analytic member ka noqotaan, fadlan saa hore idinku sheegay linkiga videogan hoostiisa registration ka sameeya. insha allahu tacaala maalinta idiin wacnaato. Ramadaan kariim dhammaantiinba.